السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن دمان أصحابتنا داون الساعة halka nagala socota waa Maxmed Joker Production. maanta asxaabta waxaan idin wadaa kolley barnaamij waxaa maanta barnaamijkana ay ugu azuumin saaxiibkayga Maxmed Abdibiye saaxiib ugu qaali ah oo maxay raadaan muddo soo jabnay meel la iskala soo baxnay oo maanta xushmad iyo wanaag iga mudan oo madaxa ii saaran ay ila joogo saaxiibkayga ku soo dhaw aad iyo aad maxamed sidoo kale adiga waa kamid marnido yani qof aad isku dheernaanahay yani qof maanta shalay soo bartimanin dad meel dheer iskala imaadaan nahay waana maasantahay waana ku dhawaa ما شاء الله kusoo dhawaasho kadib biyo maanta horta waxaan halkan kugu gaaday inaan su'aalo ama barnaamij kulli aan kugu qabto maadaama muddo aan kala maqneen haddana aan ku arko waxaan saaxiibka kale oo haddaad jans ku heshay kaalka marda la soo bax agaan ku taagtay marka inkastoo barnaamij kugu gaaday waan iska hergabaysanayay tartiibi allah ku aafiyo ku duceeyana marka barnaamijka aan wato wuxuu yahay horta adduunkan halka dadka jooga koonkan ku nool horta waxaa loo badan yahay jacayl yes waaw nacayb korta inkastoo isna uu jiro laakiin kulli san filay boqolkiiba 99 waa jacaylka dhow walba ha noqoto muslim ha noqdo gaal ha noqdo meel walba hataa qof yar qof inta in jacayl saaxiibtinimo ha ahaado walaaltinimo ha ahaado jacayl xiriir ha ahaado kulli jacayl wuu jiraa marka inkastoo anaka baryahan hindidii oo jacaylkii jili jirtay aan ka darnayo tiktok hadii hata heesahooda wax walba aan xifdinay wiilasha Soomaaliyeed gabdhihii wax walbo ay u malayso dhaqankooda sidii hindi oo kale ay ka dhigeen heesii wax ka badan jacayl maxamedo aan ka dhaxgalo hindidan wadankan lagu sheegay hindi horta anaga wax lagu yihiin Soomaali wax ku yihiin sax sababta ay wax ugu yihiin waxa waay يعني عالم كمركي لفيريو نمبر 1 سومالي ينتدي waxay soo saarto update keeda day by day oo la socdaan صح يعني waxa way wax aan ma aragtay macquul ahayn yani unigi yar oo maanta 8 sano ama 10 sano jira hadaad weydiis Master Bond ma taqaana ama Akshay Kumar ama Sunil ma taqaana ama Akshay Kumar ma taqaana ama Shahrukh ma taqaana dilule naagihi aba hadda waxay leeyihiin يا حلال لهاد مركا دادي نين أكشي كومارا أكشي عندهنا نين سلمان قارو تمهي سيدا أيود عسيهين وحبط كي سيدا وحيبا نقطبا نيو سومالي دقن كذا هندي وحانا قلنا التوبر براي مركا يعني هندي دا يعني التوبر يس ها فيلك النوم معي ها نوم معي يعني سومالي لو دقي لجنتيال بدنا أجلسي جي كي وهاجر أجاكيس جاجومو يعني يعكو dad badan ay jiro oo isku yaani inta ka salaamana waa lejantiyaasheena waa dadka aan ku dayano waa dadka maaragtay fankeena horumarsiiyay waa dadka macnaha Soomaaliyeed meel gaarsiiyay oo fasiraada hindida wax ka dhigay ma sha Allah markii hindida markaan hadalkii soo koobo hindida anaga ay wax lagu yihiino anagana waan ku faa'iidno hadda waxa arkaysaa gabar la dhahay Anjali mid la dhahay Akshay يعني dadkii waxay magacyadii wax isku bixiyaan magacyadii gabdhii Soomaaliyeed waxay ka dhigteen basidii gabdhii hindida oo kale صح ما شاء الله marka dalkii kala taa soo laabto saaxiibkii qaali ah Maxamed Abdibiye horta adiga jacaylka sidii maxad ka aaminsan tahay iyo waa su'aal wanaagsan aniga jacaylka waxaan ka aaminsanahay wax jiro صح يعني shaygan waxa badal waxa lagu dhahay inuu shaygan shay jirmiya shay aad ka 50-50 aad u qaadanayso iyo shay kala jiro laakiin ani jacaylka 100% waan siiyay inuu wax jira yahay inuu dadku ku dhaco inuu dadka maaragtay ay ku rafaadaan yani jacaylka lagu sheegayana yani intuu kugu dhaco wixii aad jecleed hore kama helaysid rafaad badan yani dulqaad badan oohin badan qalbi jab badan ka bacdi إلهي قفك ونستحق وقولست متك كلنا وابو ويايو سيد عني عمل وابو يعني والي بكقاضى ما شاء الله صاحبك ورت دي سؤال أنا بيدي أجعل مصامر ترت أحمد جعلات لا إله إلا الله ما يقدس عايشس حسن دار ما قلت جوكر عايشس هنا يقدس أيه فعلا عليه نورت واجي سكولاتي وحي أنقص الجرني لا مطلع يعني فوضي وحوال صومري لكن جعل ضبه مقصود تبت مرة دمس نيو جعل أنا وصومري ما شاء الله هاي جعل ولبك وحدي كرا كوا هندي دكتو حوما واحد جليموا صح ورساقي نيو مرة كارو حارك سامتخانا شيء جلين أو فرصتي أو باي يعني
action ahaan adigu kugu dhacay صح sheegii jilina filimkii waa fiirsatay wuuba kugu dhacaba yani sidii uba dhacaya sidii filimkii uba dhacaya yani marka dadka aqliga leh waxa waaye filmaantan hadday daawadaan inay wax soo dhici yihiin inay wax dhici doon yihiin inay wax hada taagan yihiin way ka fikiraan wayna dhahaan waana wax jira jaceelka because waa wax ay soo duwayaan dadka rubaayada ha ahaato jilin ha ahaato waxyaabo kale oo filmaan ha ahaato yani wax soo dhacay ama wax hadda dhici doono iyo wax hadda lagu jirabo wax suurtagal ay dhici doonaan ay horta ka soo qaadaan صح niyo su'aasha ay weydiisay marka ogolaani jacayl way galay marka hore soo dhow qofka bini'aadinkana ma wanaagsano yani waxa asu ku dhacay inuu xaqiro raanti yani jacayl uu soo maray 2012 soo qaraabanays anoo iskuule waxaan ahaa galaaska koowaad ee dugsiga sare صح walaal maxaan warkuugu daalinaa jacayl horta wuxuu kugu dhacaa mid si aragti ah yani qofka aad aragtida ayaa jeclaanaysaa wuxuu kugu dhici karaa damac oo qofkii macnaha rabitaan aragti qalbi ahaan sheeka ahaan dareen wax badan aad u qaadaysaa laakiin jaceylka ani hadda igu dhacay oo aan waqtigaas igu dhacay jaceyl wuxuu ahaa yani ani aragtina iguma dhicin mana doonan laakiin jaceyl isoo doontay markii dambe aan ugu jajabay uu noqday asaga lagu iskugu soo doontay haddana adigu kugu dambeeyey anuu igu dambeeyo weliba khasaare oo aan macnaha aan naf raad bale ugu reeb jaceyl aan caadi ahayn ay soo maranayo صح wallaahi adaa igu khasbaayo ma ogi oo kiyaalahan waxaa usoo xirtay xoogaa waan hargebaysanahay marka hore markii labaad inay dhawayaan ka baqe sidaa darteed usoo xirtay markaa laga raali ay marka jaceylka horta biyo horta maadaama aad tiri jaceyl lugahay ugu soo doontay horta waa sax qofka bini'aadinka qalbi uu leeyahay dareen uu leeyahay si walbuu kusoo maraa jaceylka si walbuu kusoo galaan sida ay tahay haddana maxaa yidhahdaa qofka jaceyl mid horta saas sheegto ku guulaystaa midna qofku jeclaaday maba helaba midna qofku jeclaaday ma helo midna labada is jeclaatay ayagoo israbaanna waa la kala geeyaa marka adi jaceylka dhanka familka maa lidin kala geeyey ma ayada ku diiday arqabad kale maa soo gashay qof kale may kala jeclaatay arqabada kusoo heshay jaceylkeyga horta familigeyga ayaa iga burburiyay soo doontay haddana aan igu dambeeyey haddana familgeyga iga jajabiyo ahay kaas musiibo kusoo doonato aha marka kolley ani wax khasaaro oo weyn oo hadda aan u arkay malahan laakiin waxay familkaaga uu kugula taliyo kolley ku dhaho weliba hooyada ani aabahey waxba ima dhihin laakiin hooyadey ayaa igula talisay way dhahday ama asaan laga fiican yahay anigana horey baan go-aan ka qaatay ilan hooyo wayna dhashay yani sagaal bilood anagoo adduunyada joogina caloosheeda nagu soo sidii 9 bilood waa sanad oo 3 bilood dhiman ayay keligeeda sariir maaragtay hadba dhinacaan kasoo mudayna marka hooyo wixii ku dhahdo ooba diintaba ay raalli ka tahay waa inaad maaragtay inkastoo diintu ay sheegayso waalidka laba shayba hadduu ku diido laguma raacayo shayga koowaad waxaa waaye dhinac diiniyan ahaan oo soo gaal ahayd alxamdulilah ilaahay gaal baa nagama dhigin anaga dad muslimiin aan nahay maaragtay dad soomaali aan nahay alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh dhan diin hadduu kula soo galo laguma raacayo oo waalidkaaga maalan hadduu gaal yahay oo haddii aad muslim tahay diinta dhanka gaalada kugu waco oo lagu caasiyaa laguma raaco wuu kugu leeyahay stiil ogow asoo gaal leh midda kale waxay tahay guurna waalidka hadduu ku diido laguma raaco marka guurna maba aheenba jaceyl markaan heshiinay qoftii aan rabnay inaan jaceylkeeni aan ka mari dhalino ayaad hooyada iga hoos booday ilaahay khayr siiyo halkaan ka salaamaya hooyo asli cali kulle way nooshahay ilaahay waxaan ka baryaa cimri dheer iyo cibaado inuu ku siiyo in maaragtay adduunya aakhira maaragtay hooyo walba Soomaaliya muslim oo salaam inuu janno adduunyada ila cibaadada suuban ilaahay kugu hogaamiyo aakhirada jannatul firdaws ilaahay inuu ku gooyo ayaan ku rajaynaa hooyo horta taas ay ahayd jaceylkeyga meel ay maaragtay jokorow uu ku dhammaaday uu ku baaba'ay maaragtay waa taas su-aal kale aan weydiinin jokorow maya waan ku weydiinaya tan jaceylkan wax kaa weydiin rabaa waayo
dhanka arqabada waxay noqotay hooyada ku tiri wiilkayga meeshan ilama habboone ka joogso aad ka joogsatay taas waa gooni laakiin isla jecelka sitaa ku jirtay markii aad gabadhaas hooyo ay redcard ay kaa siisay ku tiri gabadhan may ilama ahan kadib adiga xasuus ahaan maxaa dareen adiga kusoo wajahay oo dhibaatada u muuqatay bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ogahay niyow keligiiga anoo iska oynaya horta habeen ma seexan maalin sidoo kale waa soconayay waxaan taagnaay uu gabadhii albaabkii gabadha guriga ay ku nooleed aan taagnaa aniga oo weliba wato negative oo waa lii kaasoo diiday hooyaday maaragtay gabadha maaragtay kulamo rabi ay dhahday ayaa hooye maaragtay albaabkii la taagana negative albaabkii la taagana wallaahi waxyaabo badan oo shaydaanka noo keenaan ku wada fikirnay alxamdulilah markii dambena ilaahay baa maaragtay naga qabtay alxamdulilah gabadhiina hadda intaan ka salaamaya magaceeda lama sheegaayo waa xaas caruur bay leedahay maasha allah waan isxiriirinaa dad anagaas ugu dhow ku dhaqnaa meeshaada madaxa ii saaranta maasha allah sidoo kale ayada waan salaameynaa guriga weli maan rajeynaa insha allah newtan kale haddii aan wax kaa weydiiyo kastoo maadaama aan nahay dad dhalinyaro ah heesaha waa la dhegeystaa dadka heesaha dadka qaar hata markay qayilaan waa ku qayilaan waa dhegeystaan aroosada laga shidaa gabdhaha way alabta ku dhaqaan guriga lagu xaaqaa waxba la sameeyaa wiilasha hata farshaxanka way dhegeystaan darawalka saas oo kale adiga heesa meel inkastoo dan suldaanseer aan jikooyinka hata laga shido marka adiga ma jiraa fanaan adiga qaas ahaan u taageertid oo aad taageer u tahay fanaaniinta soomaaliyeed niyo fanaaniinta soomaaliyeed kolley horta waa dad maaragtay aniga nagu weyn oo noo ah astaanta sidii calankii camal ay noogu taagan yihiin maxaa yeelay wadan dhan ayay matalayaan oo ay fanaan u yihiin oo ay caan u yihiin waa la dhegeystaa kulley ani fanaaniinta kuwa hore kuma dhahay horta been ma sheegayani kuwa hore waan taageeri jiray kuma dhahay laakiin kuwa dambe hadeer waan taageeraa oo waan ka dambeeyaa oo waan dhegeystaa oo waan maaragtay xismeeyaa yacni waan ku xiranahay sidii dadkaba ay u xiran yihiin waa sax marka inkastoo ay saas tahay saaxiibkay video aniga kula hadlaa jookar ahaantayga kuwii hore hataa aniga inkastoo fanaaniintii hore aan soo gaarin waagii masrax laga heesi jiray laakiin fanaaniinta hore waa taageeraa ku hadda joogan waa taageeraa saan u kala taageeraa jirta marka adiga marka fanaaniintii hore haddaad tiri ma taageeri jirin fanaaniinta maanta joogta inkastoo fanaaniinta soomaaliya maanta ay wada odmacaan yihiin aan kala dhicin oo heesooda ay heese laga daba dhacay adiga marka ma jira fanaan adiga qasaa alle kan adleeda waa taageeraynaysa codkiisa ama heesiisa ama hataa ereyada murtida ku heeso aad ku haysatid oo marba aad leedahay fanaanka ile waa fanaan okay waa jiraa inkastoo soomaalida hadda joogta odayaashii ama dadkii fanaaniinta abwaanidii ay dhahaan hadda wax la qaado hees maaha murti kuma jirto ninbaa intoo meesha iska soo istaaga microphone iska qabsanaa cod baa laga qabanaa musica loo qaraaca laakiin anaga nin walba casriyuu leeyahay anaga casrigeena iyo kooda ayaga murti iyo waxaas raadiyaan aan leeyahay laakiin anaga keena musica ayaan ku faraxsanahay midda kale su-aashaada fanaanka aad taageerto codkiisa aad ka heshid horta ani fanaanka qadakeeyo la dhaho ayaan taageeraa hooysiisa aan ku xiranahay wasalaamina waa fanaan aan taageero waa fanaan maaragtay aan aaminsanahay waa fanaan maaragtay igu weyn yacni aan maaragtay heesihiisa inta uu qaaday aan israada maanta waa xafiidsana يعني بقولكي بس عايش أنا واحد في السنة يتوصل هسيس ها وايا نكاس أيام تاجرة والله إنه أنا كنت تاجرة إنك فنان كنت محضر رجلا دمريرة متغنيس فنان كنت محضر لا وأنت ما عندك كسر قران إلا ومعلومة بتميس أنا ما كسر وضوط استغفر الله سبحان الله دمر وحى مغلى صداها نيو كلها يدلا هرتا بري دويت جاي وأنا أقولي وحوي نيو دمر بيارو اللي جاي فيديوهاشooda daawaday dadka fanaaniinta badan way kaftamaan dad isjecel asoo dhahayo dalmar bidaar buu leeyahay dalmar asoo dhahayo xararka clipkiisa soo kasoo jawaabo dhahay tintan aniga energy baan ku ahay saas darteed aan iskaga xiiray hadda kala adduunyadan waxaa ki jiray cunto hibil baa energy ku ahay daawo hibil baa energy ku ahay laakiin tin baa energy ku ahay walaan horta taas jawaabteedii la haddana waan raadiyay waa waayay tin baa energy ku ahay wallahi aad waxaan la yaabay noqotay ما شاء الله كل عيد والبو ما عند الصومالية ما وجودنا كسلام منا حالنا نقول يقول ما يرجعنا أنت ودن كل نور ودن كنود الله كديجو إن شاء الله ودن كان الله نوصل عليه لنا أنا كنا ده اللي بيمشي جودنا السلام منا مرات مرصدحات
barnaamij meeshaan kusoo gabagabeynanaa oo maanta aan ku wareysanaya walaalkeyga weyn maxamed abdibiyey marka waxaan idin leenahay haddaad ku cusub tahay janalkan fadlan subscribe gareyso like share comment marka kulley idink meel aad gaarsa meel gaari karto kulley gaaro xor yara waxaa arkaysa cadaan oo billions wato subscriber marka isqiraadaada iska dayno meel waa isgaarsi kartaa Soomaalida saafir kan wax ma sheegay oo isdaafnaa marka wuxuu rabaa ha ahaado qof walaalka Soomaalida oo juhdi dadaal ku soo bixiyay oo meel soo fadhiistay kullu wuxuu sheegay dadka waxay u kala baxaan Maxamedow waan soo gabagabeynaysan ka dhax gale YouTuber CK la dhahaa wuxuu dhahay mataqaana dadka waxay u kala baxaan labo kuwa dhixuna la fadhiyo kuwana waa fiican yihiin team CK ka tirsan inuu leeyahay waa waran dad fadhixuna jiro يعني meesha videoga walaalka waqti ku soo bixiyay time ugu soo baxay adi lacag kuma siinin macnaha soo sameey ma dhihin asaga isku juhdi galay inaad ku dhiiri gelisaa leedahay dad fadhixuna lama weynaayo laakiin inta xun inta fiican ayaa ka wanaagsan inkasta mar walbana waxaa wanaagsan qofka xun ha fiirinin qofka fiican fiiri ka soo qaado komitiyashiisa hore u socon kula Maxamedow marka insha Allah barnaamijka meesha uu gabagabeysan yahay hadii ilaahay raado waxaan leeyahay kulantan buu xiiso leh waa inoo video xiga insha Allah